بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وعندا وضيال كسر هذا warka ogaal TV oo toos idin ka imaanaya stuudiyaha TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho waxaan idin waramaya anigoo ah Cabdullaahi Gacmo qodobada warka xilligan ugu waaweyn waxa kamid ah ciidamada AMISOM ee huwan magaca howlgalka ATMOS ayaa howlgalo qorsheysan waxa ay ka bilaabeen xerada Xalane iyo agagaarkeeda ciidamada ammaanka maamulka Galmudug oo gacanta ku dhigay gaari la sheegay inuu siday waxyaabaha qarxa wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo sheegay in dalka Soomaaliya uu wajahayo qatati ugu darneyd madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dalka markan uu ku jiro xaaladii ugu xumeed waxaan uu ka digay in dalka Soomaaliya la geliyo markale qalalaaso siyaasadeed wararka Soomaalida ka baxsan waxa kamid ah baarlamaanka dalka Pakistan ayaa codkii kalsoonida kala laabtay ra'iisul wasaarihii wadankaasi Imran Khan intaasi waxay ahaayeen qodobada warka telefishinka ogaal u diyaar garooba iyagii oo fidsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan aynu ku bilaabnay ciidamada AMISOM ee huwan magaca howlgalka ATMOS ayaa howlgalo qorsheysan waxa ay ka bilaabeen xerada Xalane ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka taliska ciidanka nabad ilaalinta ee ATMOS ee ka howlgala Soomaaliya ayaa howlgalo waxa ay ka bilaabeen gudaha xerada Xalane ee magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda qoraal ka soo baxay ATMOS ayaa lagu sheegay in howlgalkan uu socon doono laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 10ka bisha April ilaa 16ka bishan isla markaana inta uu howlgalku socdo la joojin doono wax kasta oo dhaqdhaqaaq lana xiri doono dhammaan nooc kasta oo ganacsi oo Xalane ku dhex yaala howlgalka ATMOS faahfaahin dheeraad ah kama bixin sababaha keenay howlgalkan hase yeeshee waxa uu ku soo beegmayaa xilli la qorsheynayo in 14ka bishan xirada Afisyooni lagu dhaariyo xildhibaanada labada aqal balse ay kamid tahay goobaha la xirayo sidoo kale howlgalkan ayaa ku soo aadaya xilli uu xogeystay khilaafka u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliya iyo midowga Afrika kadib markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble uu soo saaray go'aan dalka looga eriyo wakiilkii midowga Afrika ee Soomaaliya Danjiro Francisco Modera hase yeeshee midowga Afrika ayaa tallaabadaasi iska diiday waxaana uu taageeray go'aankii ka soo baxay xafiiska Villa Soomaaliya oo uu fadhiyo madaxweynaha uu madaxweynku ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamada ammaanka maamulka Galmudug ayaa howlgalo qorsheysan waxa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan maamulkaasi waxaana ay sheegeen inay qabteen gaari la sheegay inuu siday waxyaabaha qarxa isla markaana ay ciidamada ay gaarigaasi qarxiyeen sida warkan uu ku sii dheereynayo wariyahana Salaad Maxamed Khayr ee Salaad Soomaaliya ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ayaa xalay howlgallo qorsheysan waxa ay ka furiyeen deegaan lagu magacaabo Godyaanyo oo ku yaala koonfurta gobolka Mudug ciidamada ayaa howlgalka ku burburiyay gaari la sheegay in laga soo buuxiyay walxaha qarxa kaas oo ay al-shabaab doonayeen inay ku weeraraan deegaankaasi saraakiisha daraawiishta iyo kuwa deegaanka Qararow ayaa waxa ay warbaahinta u xaqiijiyeen in howlgalka xalay saqdi dhexe uu ka dhacay deegaankaasi isla markaana looga hortagayay qaraxyo ay al-shabaab la doonayeen inay ku weeraraan deegaankaasi toddobaadkii hore ayay ahayd markii ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 22aad iyo kuwa Galmudug ay gacanta ku dhigeen gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa iyo rag la socday kuwaasi oo baaritaano lagu wado ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ayaa shalay qarxiyay qaraxyadii ay qabteen waxaana saraakiisha ciidamadu ay sheegeen inay dardar gelinayaan amniga deegaanada Galmudug Salaad Maxamed Soomaali wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa waxa uu ka digay in dalka la geliyo qalalaaso siyaasadeed waxaana uu sheegay in dalku uu wajahayo cabsi dhanka amniga ah wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa waxa uu sheegay isagoo hadlayay in wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya la eriyay uu dhibaatooyin la shaaciyay oo ka geystay Soomaaliya isla markaana uu dhibaato ku hayay bulshada Soomaaliyeed iyo qarannimada
waxa uu ku eedeeyay in filla Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha madaxweynku ka dhamaaday ee Farmaajo inuu si indha la'aan ah u difaacay Danjiro Francisco Madera qaraadkii uu galay iyo sidii foosho xumeed ee uga shaqeyn jiray dalka Soomaaliya. Wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur oo su'aalo lagu weydiiyay Twitter Space ayaa sheegay in Farmaajo uu qorsheynayo waa sida uu hadalka u dhigay haddii uusan sii joogin dalka Soomaaliya in aanu waxba ka harin isla markaana uu iska herkeeno shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka AMISOM ee uu sheegay inay nabadgelyo u joogaan Soomaaliya. ugu dambeyn waxa uu sheegay inay jirto khatar aad u ballaaran oo maalmahan socota kuwaas oo ay ku soo wajahan tahay dadka Soomaaliyeed. waxaana uu sheegay in dadka Soomaaliyeed aan la gelin qalaas siyaasadeed isla markaana dalka aan loo horseedin khatar dhanka amniga ah. khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaana uu mar kale dib u dhigi karaa doorashada Soomaaliya iyadoona baryahan ay socdeen hadalhayn dhanka amniga la xiriirta. waxaana dhowaan dalka Soomaaliya lagu qaban doonaa xuska maalinta ciidamada xoogga ee 12 Abriil taasi oo ay naga xigaan maalmo kooban. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo bulshada Soomaaliyeed la hadlay ayaa sheegay in dalka Soomaaliya uu wajahayo khatar dhanka amniga ah waxaana uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu ka digay in dalka la geliyo qalaas siyaasadeed. mar kale waxa warbixintan soo koobay Salaad Maxamed Khayr ee Salaad Soomaali. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay walwalka laga qabo in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan doonayn in xilka uu si nabad ah ku wareejiyo isla markaana beesha caalamka xubnaha mucaaradka iyo shacabka Soomaaliyeed ay arkayaan waxa uu sameynayo Farmaajo. Xasan Sheekh oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in cabsi lixaad leh ay ka jirto guud ahaan dalka taasi oo suurtagal ka dhigi karta in nidaam qabiil ay isku dagaalaan shacabka Soomaaliyeed. madaxweynihii 8aad ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dalkan halis badan ay ka jirto isla markaana uu horseeday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan iyo sanadii 2017 markii la doortay dabade. waxa uu sheegay in wadanka uu galay qalqal amni iyo sidoo kale weeraro toos ah oo ka dhaca qaybo kamid ah gudaha dalka. Xasan Sheekh Maxamuud oo ah musharax madaxweyne ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu doonayo in xilka uusan wareejin isla markaana uu joogo bila Soomaaliya tabadalkeedana wax uu doono uu sameyn karo sidii uu xilka ku sii haysan lahaa. Farmaajo iyo nidaamkiisa ayuu ku eedeeyay inay ku guul dareysteen in doorasho xor iyo xalaal ah ay dalka ka qabtaan. hadalkan ka soo yeeray madaxweynihii hore ee dalka ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xiisado siyaasadeed ay ka taagan yihiin qaybo kamid ah dalka kuwaasi oo ay isku hayaan garabyada siyaasadeed ee dalka ka jira. Salaad Maxamed, Salaad Soomaali. wahagaaga daawadayaal halka warkaasi idinka imaanayo waa telefishinka Ogaal Stuudiyaha Muqdisho. iminkana akhbaraadka dibadda. baarlamaanka dalka Pakistan ayaa codkii kalsoonida waxa ay kala laabteen ra'iisul wasaarihii wadankaasi Imran Khan kaasi oo lagu soo eedeeyay waxyaabo ay qayb ka tahay musuqmaasuqa. aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Pakistan ayaa xilkii ka xayuubiyay ra'iisul wasaare Imran Khan kadib markii ay soo gabagabeeyeen ismariwaa qaatay ku dhawaad 14 saacadood kadibna ay qaadeen codka kalsoonida. afayeenka aqalka hoose ayaa Sadiq ayaa sheegay in xisbiyada mucaaradka ay 174 cod ay ka heleen 342 xubin ee golaha taasi oo ka badan codadkii ay doonayeen inay xilka uga qaadaan ra'iisul wasaare Imran Khan. mucaaradka iyo qaar ka mid ah xubnaha isbahaysigiisa ayaa ku eedeeyay Imran Khan inuu ku fashilmay dhaqaalaha sii liicaya ee wadanka Pakistan iyo inuu ka dhabeyn waayay ballanqaadyadii uu u sameeyay shacabka intii uu socday ololihii lagu soo doortay isaga. Imran Khan da'diisu waa 69 sano jir waxaana uu xukumayay Pakistan muddo ka badan 3 sano waxaana lagu wadaa in baarlamaanka inuu isniinta uu soo doorto ra'iisul wasaare cusub oo bedelaya ra'iisul wasaarihii xilka laga xayuubiyay oo ay baarlamaanka codka kalsoonida kala laabteen. Imran Khan Pakistan ayaa ah dal ku hubeysan nuclear-ka waxaana shacabkiisa ay ka kooban yihiin 220 milyan oo ruux. wahagaaga daawadayaal guud ahaan inta ayaan ku soo afmeerinaa warka telefishinka Ogaal oo toos idinka imaanaya stuudiyaha TV-ga uu ku leeyahay
magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana warka idiin akhrinaya anigu ah Cabdulaahi Gacmo aniga iyo khiyaarta warka igala qayb gashaba waxaan idinku dhaafeynaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi